عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. تودوا أصحاب تقاليق بارك الله فيكم. فيديو إن شاء الله تعالى وحين كسو قادن دونا قاريكم إلى قراد وبعانسا لو نجعل هي ودنك السودان تدكينا سومالدنا أي آدو دقيستان عالم الإسلامي أردنا لقد دقيستوه وقاري runtii aad u cod macaan waa sheekh nuureyn maxamed sidiiq raxmatullaahi calayhi raxmatan waasica. insha allahu tacaala waxaynu ka warrami doonaa taariikhdiisa oo kooban, qaabkii uu qur-aanka ku xifdiyey, khalwatul qur'aan oo ah markaasi qaab ay dadka reer suudaan qur-aanka kariimka ku xifdiyaan ayaynu insha allah iyana ka warrami doonaa. ugu dambeyn waxaynu soo qaadan doonaa sheekha shilkii ku dhacay, qaabkii uu ugu dhacay iyo waliba daqiiqada ka hor wixii ay gacanta ku hayeen. soo dhawaada, baaraka allahu fiikum. intaynaan taariikhda sheekha gudagelin, halkan waxaynu uga ducaynaynaa walaalahan reer suudaan oo markaasi uu dagaal ka socdo oo dhibaato adagi ay markaasi soo gaadhay. ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa wadankaasi markaasi khiyaameeyey ee markaasi gaalada iyo wadamada shisheeye la shaqaynaya ee wadankaasi khayraadkiisa iyo wanaagiisa u raraya ee u daldalaya, ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka qabto. ilaahay kuwa ha jabiyo, kuwa wanaagiisa iyo khayrkiisa iyo shacabka dantiisa doonayana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u hiiliyo, nasrigiisa ha siiyo. maalin dhaweyd waxaa ka dhacay markaasi xasuuq aada u foolxun oo caalamka oo dhan markaasi muslimiintu ay ka qayliyeen. ilaahay subxaanahu wa tacaala wadankaasi wadan khayr badan oo wanaag badan buu ahaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala nabadiisa ha ku soo celiyo, innahu calaa kulli shayin qadiir. sheekh nuureyn maxamed sidiiq waxa uu dhashay 1982. waxa uu ku dhashay waqooyiga kurdufaan, tuulo la yidhaahdo farijaab al-rashiid. halkaasi ayaa uu sheekhu ku barbaaray. dugsigiisa hoose waxa uu galay sheekhu isagoo ay da'diisu tahay 7 sannadood. halkaasi ayuu dhiganayay ilaa uu ka gaadhay fasalka 8aad. fasalka 8aad markuu dhameeyey ayaa sheekhu waxa uu ku biiray khalwatul qur'aan. waxaana uu yidhi sheekhu isagoo ka warramaya, waxaan aad u jeclaa oo markaasi aan tamanin jiray oo aan fursad u eeganayay inaan markaasi galo khalwatul qur'aan oo qur'aanka kariimka aan xifdiyo. waxa uu yidhi sheekhu waxaan u hayay raqbad iyo doonitaan xoog badan inaan qur'aanka kariimka xifdiyo. kadibna jaaniskii igu horeeyay ee ii soo baxay ayaan ku galay khalwatul qur'aan. جئت لحفظ هذا القرآن عن رغبة، يعني رغبة شديدة. أنا كنت بالمدرسة ولكن متعلق بالخلوة. sheekhu waxa uu galay khalwada sheekh almaki sheekh cabdiraxiim. halkaasi ayaa uu qur-aanka ku xifdiyey sheekhu. waxaan u galay 1994. xifdiga qur-aankana sheekhu waxa uu dhameeyey 1996. waxay ku qaadatay xifdiga qur-aanka kariimka inuu ku dhameeyo 2 sannadood. haddaba si aynu u fahanno juhdiga iyo dadaalka dheer ee uu sheekhu u galay xifdiga qur-aanka kariimka ah, waxaynu wax yar ka warrami doonaa khalwatul qur'aan iyo qaabka ay u shaqayso. khalwatul qur'aan waxay bilaabantay qarniyo horeeyey wadanka suudaan, waxaanay aad u fiday intii uu haystay boqorkii la odhan jiray cajiib almanjaliik 1570 ilaa 1611. waqtigaasi ayay gobolada suudaan laga sameeyey markaasi khalaawi fara badan. haddaba sheekha ayaa wuxuu samaynayaa oo uu degayaa meel. halkaasi waxaa loogu keenayaa arday ayaa loogu keenayaa ardaydaasoo meelo fogfog ka imanaya. halkaasi ayay degayaan. ardayga lama weydiinayo wax mushqaayad ah iyo wax ajar ah, laakiinse sheekhu waxa uu halkaasi ku maamulayaa dadka muxsiniinta waxay u keenaan ayuu ardaydana markaasi cuntadoodii looga samaynayaa oo nidaamkii markaasi lagu kala wadaya. khalwatul qur'aan acmaasheedu waxay bilaabmataa salaada subax ka hor 3:00 habeenimo ayaa ardayga markaasi la toosiyaa. waqtiga waxa la yiraahdaa ad-diqshiya baa la yiraahdaa. ardaygu wuxuu diyaarinayaa casharkii uu shalay ka baxay ayuu xifdinayaa oo uu qaybayaa.
salaada subax markuu tukado kadib ardaygu wuxuu soo qaadanayaa looxiisii. looxana waxaa ku yaala laba dhinac, casharkii shalay iyo casharkii doraad baa ku yaala. markaas subaxa wuxuu masaxayaa casharkii doraad loo dhigay ayuu ka maydhayaa. kadibna waxaa la samaynayaa xalqad ayaa la samaynayaa, macallinkuna waa uu dhex fadhiisanayaa. waqtiga waxaa la yidhaha waqtu ramya baa la yidhaha, waa tuuritaan oo ardaygu waxa uu macallinka ku tuurayaa casharkiisii shalay toole aayaddii u dambeysay ayuu macallinka ku tuurayaa. macallinkuna wuxuu ku elinayaa markaasi aayaddii ku xigtay, kadibna ardaygu markaasi ayuu qorayaa oo casharkiisii cusbaa ayaa halkaa uga bilaabmaya. tusaale ahaan hadduu casharkiisu ku joogay aladiina jacaluu lqur'aana cidiin, kadibna macallinka ayaa u sheegaya fawarabbika lanas'alannahum ajmaciin, kadibna ardaygu waa u qoraya. ardayga ku xiga ayaa haddana casharkiisu halkii u joogay aayaddii u dambeysay ayuu macallinka ku tuuraya. inna lilmuttaqiina mafaaza, macallinka isaguna markaasi aayaddii ku xigtay u sheegaya. xadaa'iqa wa acnaaba, kadibna ardaygu waa u qoraya ilaa ay xalqadu sidaa u wareegto. arday walba markuu casharkiisu u dhammaado ayuu looxiisa qaadanayaa, halkaasuu la tegayaa, wuu xifdinayaa, wuu akhrinayaa, wuu ku celcelinayaa. waxaa bilaabmaya waqtiga la yidhaahdo waqtu daxawiya ama sixatu lqalam, oo ah ardayga casharkii loo yeedhiyey ee uu qoray ayaa markaasi laga eegaya. haddii uu qaladaad ku yimaado waa laga saxaya. marka looxii buu soo qaadanayaa, macallinkuu la imanayaa, kadibna looxiisa ayuu ka akhrinayaa casharkiisii cusbaa. marka macallinku wuxuu u sheegayaa meelihii yaryaraa ee ishkaalku ku jiray ayuu ka saxayaa. marka intaasi dhammaato haddana waxaa bilaabmaya waqtiga la yidhaahdo waqtulqayluula. waqtigaasi ardaygu wuu quraac tegayaa, wuu soo quraacanayaa, kadibna waa inuu seexdo ilaa 10 barhka 11 ku dhowaad ayay markaasi qayluuladaasi bilaabmaysaa. ardaygu wuu seexanayaa, kadibna salaada duhur, eedaanka duhur wax yar ka hor ayuu markaasi kacayaa. salaadii duhur ayaa la tukanayaa isagoo soo nastay oo markaasi fareesha. kadibna waxaa bilaabmaya waqtiga la yidhaha waqtu duhuriya. waqtigaana ardaygu wuxuu ka baxayaa oo xifdigiisa uga baxayaa casharkii uu shalay ka baxay ayuu haddana macallinka uga baxayaa. casarkii waxaa bilaabmaya waqtiga la yidhaha waqtulmutaalaca. salaada casar marka la tukado kadib arday waliba wuxuu qaybayaa casharkiisii loo soo dhigay maanta ayuu markaasi xifdinaya oo uu diyaarinaya. salaada maqrib kadibna waxaa bilaabmaya waqtiga la yidhaahdo alcardiya, oo ardaygu wuxuu bandhigayaa casharkiisii uu xifdiyey ee maanta loo dhigay ayuu macallinkiisa uga baxayaa. cishaa'i kadib waxaa bilaabmaya waqtu subc. subci ayaa bilaabmaya. waxaa la samaynayaa ciid ayaa la tuulayaa, dab ayaa laga shidayaa, xalqad wareegsan ayaa la samaynayaa. kadibna waa ay subcinayaan, qur-aankii ay soo dhaafeen ayaa markaasi la subcinayaa ilaa iyo 10 barhka ama 10 habeennimo ayuu dhammaanayaa. markaasi ayaa la cashaynayaa oo markaasi la kala seexanayaa. marka khalwatul qur'aan waa nidaamka cajiibka ah ee ardaygu waqtigiisii oo dhan uu qur-aanka gelinayo, isagoo markaa qur-aanka kariimka ah qoraalkiisii iyo xifdigiisii iyo nudqigiisiiba saxaya ayuu ka soo baxayaa oo markaasi qur-aankii xifdisan oo markaasi sugay. sheekhu markaa halkaasi ayuu ka soo baxay. waxaan u yidhi isagoo ka warramaya khalwatul qur'aan waxay u baahan tahay sabir, bay u baahan tahay buu yidhi sheekhu. qof walibana kama soo bixi karo, laakiin qof u dhabar adayga oo u sabra ayaa markaasi midhaheeda goosanaya oo qur-aanka kariimka xifdinaya. qofka markaasi iska dhexdhexaadka ah ee xifdigiisu aanu xoog badnayn aadna u hoosaynin waxay ku qaadanaysaa inuu ku dhammeeyo 2 sannadood. sheekhu khalwatul qur'aan waxa uu ku sii jiray 4 ilaa 5 sannadood oo dambe isagoo markaasi macallin ka noqday oo qur-aanka kariimka dhigayay. sheekhu intaa kadib waxa uu ka qayb galay oo waddanka Suudaan uga qayb galay tartamo caalami ah oo ay ka mid yihiin tartanka Malaysia iyo tartanka Dubai. 2005 sheekhu waxa uu ka qayb galay tartanka Sacuudiga ee Boqor Cabdilcasiis, waxaanu u galay kaalinta labaad. 2006 waddanka Suudaan waxa uu uga qayb galay tartanka qur-aanka ee Liibiya oo ay ka soo qayb galeen 66 dowladood. sheekhuna waxa uu galay kaalinta labaad. sheekhu waxa uu imaam ka noqday masaajidda ugu waaweyn waddanka Suudaan sida Masjidul Khurtuum al-Kabiir iyo Masjidun Nuur. sheekhu waa mid aad u tawaaduc badan
oo markaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey cod aad u macaan oo dadkuna mar walba ay jecel yihiin inay markaasi codkiisa dhageystaan oo ay ku daba tukadaan. sheekhu waxa uu leeyahay dadaallo dacwadeed iyo safarro badan oo ugu baxay waddanka Suudaan isagoo markaasi dadka ku dhiirigelinaya xifdiga qur-aanka kariimka ah, sidoo kale qur-aankana ku akhrinaya oo codkiisa macaan markaasi ay dhageysanayaan. sheekhu waxa uu geeriyooday oo uu shil gaadhi ku geeriyooday 6 Noofembar 2020. waxay ahayd markaasi geeri aad u naxdin badan oo markaasi dadka reer Suudaan iyo caalam al-islaamiba aad looga murugooday oo aad looga naxay. haddaba safarkaasi ay culimadaasi ay u baxeen muxuu ahaa? sheekha isagoo markaasi safar ka soo noqday oo magaalada Khartoum ku soo noqday ayaa waxaa laga dalbaday inuu markaasi khatmo qur'aan ah ay meel ku soo akhriyaan isaga iyo 9 kale oo ka mid ah quraada reer Suudaan. sidii ayaa ay ku soo baxeen waxaanay soo kaxaysteen 2 gaari. gaari ka mid ah 2da gaari waxaa darawal ka ahaa Sheekh Nuureyn. markaa way isu kala qaybiyeen 2dii gaari oo gaariba waxaa raacay 5 sheekh. sidii ayay ku baxeen. intay safarka sii socdeenna waxay ku tala galeen intay dhexda sii socdaan in sii socodkoodana ay 15 juz akhriyaan, soo noqodkoodana ay 15 juz akhriyaan oo ay sidaasi qur-aanka ku khatimaan. waxay gaadheen goobtii markaa loogu talagalay inay qur-aanka kariimka ka akhriyaan oo ay ku khatimaan. halkaasi ayaa ay qur-aanka kariimka ku akhriyeen. waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah culimadaasi safarka ku geeriyootay waxay akhriyeen aayaad markaasi aakhiro iyo geerida ka warramaya, sidii wakaanama aad moodo inay naftooda u tacsiyadaynayaan. markii ay hawshii dhameeyeen ayaa waxay soo baxeen habeen jimco ah bacda salaadii maqrib. markay maqrib iyo cishaa israaciyeen ayay markaa soo baxeen. markaa waxaa soo hormaray oo soo horbaxay gaarigii uu waday markaa Sheekh Nuureyn isagoo markaa ku degdegayay oo markaa ballan ku lahaa magaalada Khartoum oo markaa qur-aanka kariimka la rabay inuu meel ka akhriyo. sidaa awgeed ayuu gaarigii kale ee ay wada socdeen uga soo horbaxay oo in doora uu ka horreeyey. marka ay dhexda marayaan ayaa waxay isku dhaceen markaasi gaadhi dhayna ah. 2dii sheekh ee xagga hore saarnaa Sheekh Nuureyn iyo sheekhii kale markaba naftu waa ay ka baxday. 3dii sheekh ee xagga dambe saarnaana 2 ka mid ah ayaa markaa geeriyooday. markaa culimada safarka gaadhiga ku geeriyootay waxay ahaayeen 4 sheekh. waa Sheekh Nuureyn, Sheekh Cali Algooni, Sheekh Cabdullaahi iyo Sheekh Muhannad Alkinaani. waxay ahayd runtii geeri aad u naxdin badan oo aad markaasi looga murugooday. culimadii ka dambeysay ee gaadhigii dambe wadatayna ay markaasi aad uga naxeen. waxaa soo garaacay markaa oo laga soo garaacay telefoon ka mid ah culimadii shilku ku dhacay oo markaa mid ka mid ah oo watay telefoon yaroo dan ka hadala oo markaa furmaya. kadib dadkii meesha soo gaadhay ayaa telefoonkii furay. kadibna waxa uu garaacay lambarkii u dambeeyey oo ahaa markaa gaadhigii daba socday ee ay saarnaayeen 5 qaari ee kale. kadibna waxa uu u sheegay in culimadii gaadhiga wadatay ay shil galeen. aad ayuu u naxay waanu markaasi hadli kari waayey. sheekh ka mid ah culimadii gaadhiga dambe saarnaa oo markaa ka sheekeynaya ayaa wuxuu yidhi haddii aan qiyaaso halka ay akhrinayeen markaasi waxaa u harsanaa 5 juz ayaa u harsanaa. هم لما الحادث حصل هم كانوا بيقرأوا في القرآن. الله أكبر. تقريبا في أحقاف في حتة زي دي. waxay geeriyoodeen iyagoo carabkooda uu ka qoyan yahay qur-aanka kariimka ah, qalbigooduna uu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku xidhan yahay. waxay ahayd geeri runtii aad u naxdin badan. dadka reer Suudaan, culimada reer Suudaan iyo caalam al-islaamiba aad ayaa markaa looga naxay oo markaasi loogu tacsiyadeeyey. ilaahay subxaanahu wa tacaala jannatul firdawsaha ka waraabiyo. waxa uu ahaa markaa sheekh aad u cod macaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu oofsaday isagoo markaasi carabkiisa uu qur-aanka kariimka ahi ka qoyan yahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto, jannatul firdawsana allaha ka waraabiyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.